السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته ولكن محمد سليمان أبيكر صاحبكي حبيبكي ولالكي سيجي يكون جريء مقالة مقدشة سجى طبعاً كبشي طبناد لابد كنا سجالي طبعاً لجود اللي يهتل ناسها بلطو أصلا مركز عدد أو بيكسنا السنة هنا تهدد ولا ليس إني كدلين دعادة صهيد دحدا عنهم بدن ساميسو مد Soomaaliyeed markii joogto taariikhdiisa markaasi kooban uga hadlo maxamed wuxuu ku dhashay degmada Mahadaay tuulo hoos timaado la yiraahdo Mirtugo 1982 wuxuu ku barbaaray halkaas isagoo dugsi quraanka ka bilaabay ku bartay kitaabo cilmiga ka soo raacday sheekhiisa Sheekh Ismaaciil Sheekh Maxamuud Sheekh Muuse asagoo dhowr iyo 10 jir ayuu soo galay magaalada si uu cilmiga ugu siyaasado halkaas waxa ka soo bilaabo taariikh nololeedkiisa magaalada isagoo kitaabada akhrisanayo ayuu haddana wuxuu ku biiray maxaakiimta islaamiga ahayd halkaas uu kala soo bilaabay Sheekh Shariif Shaqo intaas uu ku soo jiray halgan wuxuu haddana dib ugu soo laabtay markii maxaakiimta ay bixeen magaalada wuxuu ka howlgalay gobolka Shabeellaha Dhexe muddo ayuu ka shaqeynay asagoo da'yar oo nin firfircoon ah wuxuu la shaqeeyay maamuladii deele aniga noloshiisa waxaan ku soo biiray 2010 bishii 10aad 8deedii xawayte sanad guuradii xawayte 10aad ayuu xawayte 10 maalmood ka qaatay 9 sano wada nooleen wuxuu ahaa saaxiib ii qaasa waxaan ahaa anigu xawayte sawjad markaas aan ahayn inay tahay sawjadiisa oo kaliya laba gabdhood iyo laba wiil iyo siyaada hadda jirto aan rajaynaa inay xawayte ay nagu soo biirto waxay noqon doonaan horta Ilaahay og laakiin xawayte 4 caruur iyo siyaadaas asagana wiilka horeeyay lahaa xawayte 4 caruur inta badan xawayte ayeeyayaal ay xawayte ay iga saacidaan korintooda laakiin inta badan xawayte aniga ahaa waxaan kula taliyo maxamed wuxuu ahaa qof maskaxdiisu aad u firfircoon tahay aadna u xawayte naxariis iyo xawayte waxaan guraada awood fara badan ay ku jirto ay kiigiso aad u shaqeynayo dhanka waxbarashadana uu ka habsaamay waxaan kula taliyay waxbarashadii bilaabo waxbarashada ay halkaas ka bilaabay dugsi sare wuxuu uga baxay iskuulka Mubaarak wuxuu dhigtay 1 sano oo ah simad wuxuu xawayte ka bartay luqadda Ingiriiska 1 sano asagoo la shaqeynaya dawladda Xasan Sheekh ayuu wuxuu fursad u helay inuu waxbarasho dibadda helo Xasan Sheekhna uu ku saaciday uu fasaxay anagoo gunooyinkeeni waxaan markaas dawladda laga heli jiray helayno wuxuu ahaa markaas kabtan wuxuu ku soo bartay wadanka Uganda jaamacadda uu soo baxay wuxuu soo dhigtay public administration waxa reer socday ayuu baranayay markaasi xawayte hogaaminta ciidanka wuxuu ahaa nin markasta jecel inuu ciidanka meel ka gaaro hogaamintii soo bartay 2017 bishii 10aad bishii 13 ayuu soo qalin jabiyay 2017 magaalada ku soo laabtay halkaas shaqo ka bilaabay hadda wuxuu ahaa markuu geeriyoonaayay taliyaha ururka 8aad ee xawayte commandos Soomaaliya qaxawayte qaybta Turkisom ee xawayte maxaa la yiraahdaa Gorgor wuxuu ahaa nin shaqo badan soo qabtay magaalada wax badan ka soo shaqeeyay ciidanka xaqiisa oo janjeera aqoonta uu leeyahay waxay gaarsiisneed inuu 3 luqadood sida afkiisa hooyo uu soo fasirayo sida xawayte Ingiriiska Sawaaxiliga Carabiga iyo Turkishka hadda baranay af Soomaaliguna oo afkii ku hadlay hooyo wuxuu ahaa qof aan jeclayn qof in la dulmiyo wadankiisa jecel wanaaga jecel umadiisa jecel wax badan u arxama haddana nasiib daro wuxuu qaaday dhowr howlgal labadii howlgal ugu muhiimsaneed waxay ahayd xawayte dhanaane howlgalka wuxuu ku qabtay Ceelsaniini oo magaalada Muqdisho lug intuu ka bilaabay oo Ceelsaniini ku tagay
cadowgii loo diray markaas ka soo sifeeyay deegaanada looga diray ka yimid asagoo wax dalacsiin helin dib hadan u shaqo galay wuxuu tagay meesha la yiraahdo maxaa la yiraahdaa Owdheegle shaqo wanaagsan ayuu ka soo qabtay waliba dokumenti oo ka codsaday ra'iisul wasaaraha in laga qabto asagoo ogolaan dokumentiyada laga duubo ayuu soo duubay cabsidii iigu badneed markii ay gashay ee aan isdhahay Maxamed hadda wixii ka dambeeyo waa bartilmaameed sababtuna waxay tahay ma ahayn markii hore qof baraha bulshada laga yaqaano ma ahayn qof hadal badan ma ahayn sargaal idaacadaha hortaga ma ahayn sargaal warbixino dhiiba ma ahayn sargaal xoogta xafiisyada siyaasadda tago waxa soo dhan waxa kala weyneed shaqadiisa iyo howlihiisa iyo danaha asaga markaas uu leeyahay ma ahayn qof ku mashquulo inuu xaweyte dhaqaale sameeyo wuxuu ahaa qof magac inuu sameeyo kana tag rabay sida ay tahayna magacii uu sameeyay uuna ka tagay sabtiga u dhimanay talaadadeed ayuu dokumentigiisa shahaadooyinkiisa oo dhameystiran ayuu wuxuu yiri madaxtooyada laga rabaa waxaan Maxamedow jooji shahaadooyinkan qaadis halka shahaado dugsiga sare iyo shahaadada jaamacadda kaliya qaad dibloomooyinkan waxaan faraha badan ee aad xoog takhasusiyadan aad leedahay tirada badan jooji maxaa yeelay adiga xaweyt wax kasta ay ku keeni karaan because kuma jiro saraakiisha Soomaaliya sargaal asaga lamid ah aqoonta halkuu gaarsiisan yahay kartida geesinimada awoodda firfircoonida daacadnimada waxa aan loo siisan ayaa waxeed ummadda Soomaaliyeed ay tabi doonto ciidanka Soomaaliyeed ay tabi doonaan daacadnimadiisa himiladaas iyo hamigaas oo lahaay waxa soo hor istaagay doqoman aan dhihi karaa waliba ma ahan ma la dhihi karo waa Soomaali dhaba lama dhihi karo waa qof nasaba lama dhihi karo waa qof nikaax ku dhashay qofka ku fikray Maxamed inuu dilo qofka ka soo qaaday fikirkaas qofka dilay iyo qofka dilka ku fuliyaba intaba waxa la dhihi karaa wax cirdigooda iyo nasabkooda wax u dhimay sababtuna waxay tahay ma ahayn Maxamed qof qabiil ku tiirsan ma ahayn qof qabiil ka sharaxa ma ahayn qof qabiil shaqo ku leh ma ahayn qof dhaqaale raadisa qof intaas oo dhan aan sameynaynin inuu wadankiisa tabaruco oo wuxuu qabto horumariya jecel ninka dilay ee wadada u istaagay waa wax laga dambeeyay la dareemi karo Maxamed hadda qoladii dishay waxay xoog ku xiran yihiin xabsiga dhexe xawada CID waxa lagu hayay 22 maalmood anagoo ogaafar la saac ka badan in lagu haynin haddana xabsiga dhexe ku jiraan wali xukun ma helin mid la yaab kale ayaa waxay tahay Maxamed wuxuu u shaqeynaa qaranka Soomaaliyeed wuxuu u dadaalayay oo dhiigiisa u huraayo naftiisa oo u haligay asagoo heli karo qaab ka qabo qaabka uu ku shaqeynayo inuu ku shaqeysto wuxuu dhiiga u huraayo waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed waxa la yaab ah marka qaranka Soomaaliyeed oo Maxamed dartood oo waxaan ku dhahay u dagaalamayay oo dadka ka mas'uulka ahaa madaxweynaha haday tahay ra'iisul wasaaraha haday tahay gudoomiyaha baarlamaanka khaasatan asaga saaxiibkiisa ahaa وزراء فربضان حلوانة فربضان أو ولي وحويت محمد أياد السوق دواين قف كمذا أو نوجد تعسيسي الباب كان نقص وقع شيء أن تري إلهي يعني كصبر سي مجرس دي لقى رهبة الياش عيدا كا سيد ملتريجا يبوليسكا صاحب دي كمذا هاي دتك حويت ولا شقيها كمذا ها يجسوا دعسية وحكي جري حجار رئيس الوزراء شل التليفون كيس سيد تاسكا أو سوى عاي حاولت شقada ama hore u wad ama jooji ama dokumentiga sameey ama sidan sameey dhahayay shalay xawada shaqada asagu xawayt ugu ahaa xawayt taliyaha xawayt la shaqeynayay inuu san asaga nooga soo tacsiyeen dibki iyo xawayt dilkii lagu sameeyay Maxamed xawayt san cidna tirimaanta xawayt Allah idinka sabar siixata wax kale waa xawayt waa dheeraade Allah idinka sabar siixata cidna tirinaysan jirin taasoo aniga qalbi jab igu ah maxaa yeelay Maxamed wadani wadanka jecel oo ahaa anaguna la mid baan ahaa inkastoo aanu tuuto wadan haddana waxaan ahaa qof wadanka jecel u shaqeynaysay inta soo dadaalaysay hooyadu sideeda dhanba ayadaaba qaran socdaha because way dhalee way xawayte way korine way haysaa qarankuna wuxuu ku dadka uu ku dhisan yahay marka waxaan aad ugu xumahay haday madaxweyne ahaan lahayd ra'iisul wasaare gudoomiye baarlamaan oo xawayte intuba ay ahaayeen dad markaasi qaranka Soomaaliyeed ka mas'uula inaysan dhihin Allah idinka sabar siiyo waxyaabaha anaga ilaa hadeertaan macnaha tuhunka sii galihayo oo Maxamed inuu u dhintay xawayte aan xawayte aan u aragno
in assassinationkiisa ay tahay wax dawladda ka dhex yimid taasaa haddana nagu sii xaweyta annaga nagu sii xaweyta kordhinaysa tuhunka maxaa yeelay qofku hadduu ku yiraahdo ku tacsiyeeyo already waa xawada mahasad uga qancaysaa laakiin tacsi ma xaweyta nooguma iman nalama hadal nalama soo xiriirin intaasna xaweyta wuxuu u ahaa ayagu adeego u ahaa ma ahayn xaweyta nin markaas waxaan ku dhibaataysta ah wuxuu qof dadka u naxariis badan dadka Soomaaliyeed sida u saameysay deeridiisaan laga dareemaa anigoo ka xanuun badnaa waa ka sii adkaysan badnaa sababtuna waxay ahayd maxamed subax kasta markuu quraacdo baxay ogow inaan dhiman karo ogow in la igu daba jiro ogow inaan xaweyto wax kasta dhici karaan mar kastaba ballan dardaaran ah u malaysid inuu maalintaas iyo maalmo ka horeeyaba inuu sameeynayo ayuu sameyn jiray iimaankaas qof la dhimashada ku tashan oo ahaa qof salaada aan ka tagin oo ahaa qof Soomaalinimada iyo diiniyan iyo akhlaaqiyan Ilaahay uu sameeyay buu ahaa marka Ilaahay uu naxariisto walaalka qabrigiisa khayr Allah ka siino naga reestaan rajeynaa laakiin annaga ka rees